السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ما جعشها إنا سميسة اللوغو هدي جوابت أضوات والله نلدها وموقال كان muuqaalka maanta waxaan ku eegi doonaa qaabka ugu fudud ugu sahlan ee aad ku samaysan karto loogo. applicationka aan ku samaysan doono loogada waa kan hortiina ka muuqda, magaciisu waxaa la yiraahdaa Pixel Lab. applicationkan waa application aniba caadi in wuxuu awood kuu siinaya inaad samaysato loogo adiga kuu qaas ah. first applicationka haddaan soo furno, applicationka wejigiisa hore, fontigiisa hore sidan buu kusoo bixi doonaa. marka adiga waxaad u baahan tahay inaad samaysato loogo adiga kuu qaas iyo cabir kuu qaasa. si aad u samaysato waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas olood, kadib waxaad ka dooranaysaa image size, kadibna waxaad ka dooranaysaa meesha customka ayaad ku dhufanaysaa, kadib waxaad kasii dooranaysaa YouTube channel banner. anaga macnaheedu ma inaan samaynayno YouTube channel banner, balse cabir un baan ka qaadanaynaa. so anaga cabirka un baahannahay waa cabirkan. marka tagasta aan u baahnayn iga delete garee. si aan soo gashana marka loogo waxaad ku samaynaysaa marka calaamada balaaska aad ku dhufanaysaa, kadib shape ayaad ku dhufanaysaa. waa kuu soo galay, kadib shapeka radiuskiisa buuxi, kadib shapeka aad u yaryahay cabirkiisa hadduu kula yaraado weynayso. kadib waxaad kusoo darsan kartaa shapeka, waxaa u yeeli kartaa color. shapeka haddaa rabtid cabirkiisa sii ballaarso, haddaa rabtid waxaa u yeeli kartaa color. hadda inaa u baahanta haddaa color u yeeysina meesha enableka ka disenable-ka ka enable ka dhigaysaa. gaduudkan ayaan ku deynaynaa. sidoo kale stroke waad sii kartaa. stroke haddaa rabtid color waa siisan kartaa. stroke aniga colorkiisa madow baa stroke xataa waa ballaari kartaa. xadiga stroke adiga full baa haddaa rabtid ka dhigaysaa. haddaa rabtid khafiif, haddaa rabtid adiga inaa xashan aan ugu filan anaga. sidoo kale waxaad ku samaysan kartaa shadow baa hoos uga furi kartaa, shadowgaas kore hoos uga furi kartaa. sidoo kale waxaad ku samaysan kartaa in shadow hoos waad u yeeli kartaa adigoo marka meeshaas ku dhufanaya. sidoo kale crop baad ku samaysan kartaa oo waa jarjari kartaa. xaggaas waa soo koobi kartaa. haddii kalena sidiis ayaad ku dhaafi kartaa oo cabirka hadduu kuu saxan yahay. mideeda kale waxaad kusoo darsan kartaa sawir adigoo marka from gallery ku dhufanaya. hadda u baahan tahay marka inaad kusoo darsatid qoraal, calaamadaas ku dhufo, kadib si uusan marka shapekaas kaaga nuucnuucsan meeshaas log iska saar. si tagastaas ku dhufo, kadibna waxaad ku dhufataa calaamada edit, kadibna waxaad qortaa loogada ama kambanigaaga magaciisa, janaalkaaga magaciisa, YouTube profilekaaga magaciisa. halaas waxaa laga yaabaa inaad samaysanaysay magacyadooda ku qor. anaga hadda tusaale bay naga tahay, tusaale baan ku qoraynaa. tusaale marka saa ujeedin qoraalka uu noo soo galay. qoraalka waa cabirkiisa waa weynaysan kartaa. meeshaas saiska ku dhufo, kadib cabirkiisa alaan noogu ekee. cabirkiisa alaana nagu filan. soo marka haddaad u baahan tahay inaad samaysato color waa u yeeli kartaa adigoo marka alaan ka dooqanaya midkood. haddaa rabtid waxaa samaysan kartaa jaallo kale iska sii, jaallo kusoo baxaa. sidoo kale fontiska farta waad ka bedeli kartaa adigoo marka meeshaas ku dhufanaya. fonta in allaale intii fontis aad jeceshahay aad xiiseynayso fadlan dooro. halaano fontis waxaa laga yaabaa mid ka mida inuu ku qanciyo. soo marka adiga ka dooqo midkii dooqaaga ka dooq. aniga hadda waxaan dooqanaynaa fartan baa dooqanaynaa. waxaan dooqanay fartan. sidoo kale saa ujeedin farta way noo soo gashay. sidoo kale farta styles waad ku dari kartaa, bold waad ka dhigi kartaa adigoo meeshaas ku dhufanaya. marka italic ka dhig, underline u yeel. haddii aad intooda u baahnayna meeshaas tiida ku dhufanaysa calaamada slashta. sidoo kale textada background u yeel adigoo marka meesha enable ka dhigaya. sidoo kale radius u yeel, asagana radius u yeel si marka uu qurux ugu soo baxo. sidoo kale backgroundka colorkiisa bedelo, qurux ka dhigo backgroundka colorkiisa sida lata madow baa kusoo baxaya. sidoo kale asagana stroke u yeel soo qoraalkaaga marka qoraal qurux badan uu noqdo. strokegiisa waxaan ka dhigi lahayn aniga cagaar maya, waxaan ka dhigi lahayn stroke jaallo asagaba ah, madowna backgroundkiisa ah. marka buluug le iskaga dhisaynaynaa, buluugu kusoo baxaya insha allah. sidoo kale waxaad samaysan kartaa shadow hoos oo yeeli kartaa, reflection oo yeeli kartaa adigoo marka meelaha kuu soo baxda oo disenable ka dhigaya. soo marka
kusoo darso marka qoraal kale hadaa u baahan tahay xitaa qoraal kale inaad kusoo darsid emojis xataa waad kusoo darsan kartaa sidoo kale anaga hadda emojis kan camal inta waa soo dhigi kartaa tusaale emojiskaas waa raacsan kartaa haddaad u baahneen calaamada leeda ku dhufo anaga hadda muu baahnin inaan emojis kusoo darsano waxaad ku dhufanaysaa hadda haddaa qoraal kale u baahan tahay sidiisa marka qoraalkan text kaaga nuxnuxsanin calaamadaas ku dhufo kadibna waxaad ku dhufanaysaa log kadib textka kale kusoo darso si aad marka text kale ugu soo darsato waxaad ku dhufanaysaa edit kadib textaas iska daleed kadib waxaad ku darsanaysaa qoraal kale u baahanta anaga hadda waxaan iska dhigana ahaan marka adigoo marka cabirkeeda waa weynaysan kartaa cabirkeeda alaana nagu filan alaan waa ka dhigi kartaa sidoo kale ahaan kalar waa u yeeli kartaa sidoo kale kalar qurux badan u yeeli kartaa kalar qurux badan u yeel marka adigoo meelaha enable ka dhigaya soo marka anaga kalarkan u baahannahay waa kalarkan oo kale iska sii sidoo kale opacitygiisa khafiif waad ka dhigi kartaa hadda u baahan tahay video effect shadowna waa sii kartaa ayadana fontiska ka bedel anaga fontis ahaan waxaan siinay ila qurxoonaaday kaas kana siiyey tusaale ahaan cabirkiisa markii aan fontis ka bedelna woo weynaaday say ila tahay fontiska yaree cabirkiisa yaree sidoo marka waa ujeedaa meeshaas inaan sameynay loogo qurux badan loogada hadda u baahan tahay xitaa waxaad kusoo darsan kartaa transparent waad ka dhigi kartaa marka si aad transparent uga dhigato calaamadda meesha scrollka soo jiidaysaa qaybtaas afraad ayaa imaanaysaa aniga waxaan ka hadla qaybtaas afraad kadibna waxaad ka dooranaysaa transparent soo ujeedada hadda loogada waa transparent wax background laguma arko meesha hartid waa geysan kartaa marka si aad u seefato waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas ku dhufo kadibna waxaad ku dhufanaysaa image kadibna save to gallery ku dheh si totally wuxuu kugu seefayaa wuxuu kuu geenaya imageskaaga si hadda marka waxaad u baahan tahay hadda qoraalkaaga waa mid seefay oo mid la seefay hadda inta haddaa ka dilad gareyno wuxuu kugu jiraa gallerygaaga waxaad ku samaysan kartaa waxaad saaran kartaa editing ayaad ku samaysan kartaa waa sii qurxsan kartaa fadlan videoga hadduu ku qanciyo like hadduusan ku qancin dislike sidoo kale ka mid noqo walaalaha ku xiran channelka Wardani adigoo taabanaya subscribe sidoo kale gambaleelka furo si videoga kale uu kuu soo gaaro waxaan kaga tagay sidaa iyo amaana Allah